meeshaana duruuf adagaa jirto waxaan la qarnayna waxa waaye xildhibaanada duruuf adag ku nool yihiin koo xagga security-ga duruuf adag ku nool yihiin oo marka qofka xildhibaan soo noqdo nolosha caadiga ka soo baxaa nolol wuxuu galayaa ghettoise wax la yiraahdo meel xiran oo security u baahan ilaalo u baahan xildhibaankii waxa laga rabaa dadkii soo doortay waxay ka rabaan shaqo waxay ka rabaan dadkooda inuu qabto waxa laga rabaa inuu qof kasta gacan siiyo tabartaas ma jirto marka resource-ka yarka ee la haayo xukuumadda gacanta ku haysa xildhibaanka marka mar walba wuxuu ku xiran yahay wuxuu u yahay subject ama wuxuu u yahay baahi u qaba xukuumadda because dadkiisa wax la xalinayo ehelkiisii tusaale ku saadani xildhibaanan ahay dadkan aan matalo waa isku dhibanahay waxa isku dhibanahay waa inaan dawladda maanta oo dhan u soo bariyaa wiil hadii shaqo la geynayo mid hadii baasaboor la qaadayo mid hadii viisa dibad loo qaadayo mid hadii shaqo la siinayo xaq caadi oo asaasi mid hadii isbitaal dibad loo qaadayo kuwa dhibaataysan wax la yeelayo waa in dawladda u tagtaa dawladdiina markay hostage waxay maxbuuskaaga dhigaysaa dantii deegaanka ama talaysay ayada maxbuus uga dhigaysaa marka waa laba mid inaad dawladda isku dhiigto wajid xildhibaanada xoogooda ay sameeyeen oo hadda wiil agaasimo u rabto ama xil u rabto ama aad deeq waxbarasho u rabto ama aad meel wax uga rabto dawladda ku xiranta taas waa mid dadkii ku matalay taada adiga shakhsiga ah saa u noolaata marka noloshaada mishaarkaagii iskuma qalmaan hab nololeedka ku dhex jirto oo xagga ammaanka oo xagga raraaqa u baahan tahay oo xagga marka xildhibaankii muxuu markasta baahi u qabaa marka xukuumaddii marka waa exploitation waxay meesha u fadhisaa inay ka faa'iidaysato duruufta oo xildhibaanka oo ku nool yahay marka xildhibaanadii waxay dagaal ugu jiraan muxidiinu haddaan si kooban u soo dhigo duruuftii iyo damiirkii sidee u noolaa lahaayeen leedahay duruuftii iyo damiirtii inay iswaafajiyaan damiirkii ka rabeen wax ku qabtaan iyo duruuftoodii iswaafajintoodii struggle ugu jiraan xildhibaanadii